kulan ay soo qaban qaabiyeen ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia ee ka soo qayb galeen qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed iyo aqoon-yahano ayaa lagu qabtay jaamacadda Islaamka ee waddanka Malaysia. kulankaas ayaa waxaa looga hadlay isdhexgalka iyo midowga ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata qaaradda Aasiya. intii lagu guda jiray kulankaas ayaa waxaa looga hadlay hambalyeena loogu jeediyey ardaydii horaantii bishan ka qalin jabisay jaamacadda UUM ee dalka Malaysia. waxayna mas'uuliyiintii kulankaas ka soo qayb gashay isku raaceen maankan ay ku hayeen in ardayda wax ka barata Malaysia ay yihiin kuwa ugu tacliinta fiican qaaradda Aasiya. dhammaan ardaydii ka soo qayb gashay kulankaas ayaa waxaa wajahooda ka muuqday sida ay ugu faraxsan yihiin in la mideeyo guud ahaan fikirka ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata qaaradda Aasiya. ugu horeyn gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia Cabdisalaan Maxamuud ayaa iiga warbixiyey ujeedooyinka loo aasaasay ururkani waxyaabaha uu qaban doono iyadoona qaar ka mid ah ardayda ay ka dhiiban doonaan aragtidooda ku aadan kulankan. ardayda Soomaaliyeed waa arday isku xiran nidaam iyo urur leh. ururku wuxuu maamulaa oo isku keena ardayda wuxuu qabtaa activity sida maalinta ay u xusaan maalmaha muhiimka ah ee wadankooda sida kooda iyo maalmaha muhiimka ah ee islaamka sida salahan oo kale ciiday waxa la mid oo kale. ardayda sidoo kale waxaan u yeelnaa dhifkaas runtii si ay uga hadlaan arrimaha dantooda qusay dalkooda. laba qodob. qodobka koowaad haddii ay ku sifoobaan wadaniyiin waxay noqon doonaan 13 nin ee badbaadisay ama xurriyadda gaarsiisay waddanka Soomaaliya. haddii qodobka labaad ay ku sifoobaan dad qabyaaladda ka nasahan ayadana waxay keeni kartaa ama horseedi kartaa in Soomaaliya dhibka hadda ay ku jirto ay ka baxdo at the same time ay gaarto horumar iyo wanaag oo ay ka mid noqoto dawladaha Afrika laga xushmeeyo. runtii waxay u muuqataa inay tahay bilaaw cusub isla markaana ay daafur ay u yihiin arday Soomaaliyeed kuwaasoo ka ambaqaadaya marka koobaadba waxbarashada iyadoo loo baahan yahay mar walba in ay salna u ahaato dad aad iyo aad u jecel inay noqdaan dalkooda walow taasi markii aad dalka aad joogto dadku ay dalka jecel yihiin hase yeeshee markaad banaanka aad timaado ay ku soo baxayso in 90% dadka qalbigoodu ay wadaniinta ay ku yartahay. ardayda Soomaaliyeed ee ku nool Malaysia ayaa si aad u soo dhaweeyay fikirka midowga ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata qaaradda Aasiya. dhanka kale dabayaaqada bishan December aynu ku jirno ayaa la filayaa inay dhacdo doorashooyinka madaxtinimo ee waddanka Malaysia iyadoona maalmihii aynu soo dhaafnay si aad loo adkeeyo guud ahaan ammaanka waddankan maadaama mucaaradka ka soo horjeeda dawladda ay wadaan oo lala ballaaran ay ku carqaladeyn karaan doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan waddankan Malaysia. Axmed Abuukar Xuseen, Somali Channel TV, Kuala Lumpur, Malaysia. waxaa magaalada Nairobi si weyn looga xusay